waxaan kulankan isugu yimid jaaliyadda Jubbaland ee ku dhaqan Columbus Ohio. shirkan shirkan waxaan ku taageeraynaa shacabkii Jubbaland kacdoonka isbedel doonka ahaa ee ka dhacay jubbooyinka. waxaa kaloo aan ku dhaliilaynaa go'aankii shirki ka dhacay maamul goboleedadu ay shirki maamul goboleedada ee ka soo baxay kulankii ka dhacay Kismaayo. insha Allah taala waxaan guda galaynaa kulanka yaga. haddana waxaan ku soo dhaweynayaa oo shirka inoo furi doono ugaas Maxamed ugaas Xirsi. marka u horeyso 14 iyo 100 cadada quraankan in ku salaamayaa assalaamu calaykum wa rahmatullah. marka xigto waxa weeye shirka kanu waa shir Soomaaliyeed u dhantay oo dad badan oo Soomaali ah joogan gobol kastana laga joogo oo dalkeena markii laga soo qaado laakiin hadda isku gobol baan nahay intanada Columbus Ohio. anigu haddaan Maxamed ugaas Xirsi aan ahay waxaan ku dardaarminayaa dhammaan Soomaalida oo dhan waxaan ugu baaqayaa hadday Soomaaliya jirto iyo hadday dibadda joogtaba dawlad la'aan waxay ahayd waa soo aragnay waad garanaysaan wixii la qabsaday. waxaan idin farahayaa anoo idin ducaynayo ummadda Soomaaliyeed dawlad baa deeqdo qabiil ma deeqo gobol ka fiican ma jiro. waxaan idin farahayaa oo idin kula dardaarmayaa inta dharcaawo waa isla noolnahay biri lama noolo in Soomaalida ka shaqeyno dawladana aan taageerno gobolada ka cabanaya dawladda. waxaan leenahay dawlad la'aan waad soo aragteen dad ummadda Soomaaliyeed oo dawlad baa deeqdo dawlad la'aan waa soo aragnay anuu cidna wax ka sheegi maayo gaara gobol gaar ana wax ka sheegi maayo 17 ugaas baan ku abtirsadaa. anigu hadda waxaan ku dardaarminayaa ummadda Soomaaliyeed Soomaalida baa deeqdo dawlad baa deeqdo gobol dawladii darow hadda waxa weeye wax kalaad wadataa. waxaa la yidhi haddii la arko wax laaban inuu wax soo xadaa la moodi. cadaalad baa deeqdo cadaalad gobolka ogolow dawladda taageera ummadda Soomaaliyeed hadda halkan isugu timidna waa waqti dambe. waxaan ku dardaarminayaa in dawladda la taageero. dad waxaa jira mucaarad ah ama halkaa jooga ama dalkii ku jiro war meel la gaari maayo haddaan iska qabsanee dawlad baa deeqdee dawladda taageera. anu gobol gaar ah ma haysto ugaas haddii uu ugaas yahayna gobol gaar ah wax ku tari maayo. gobol aan tagin anu da'dayda ma yaro isticmaalkii baan garanayaa gobol aan taginna ma jiro Soomaaliya. marka waxaad yeelaysaan Soomaaliya waxaan kugu baaqayaa dawladnimada deeqdo lama deeqdo qabiil iyo gobol annagoo federaal aan dawladdeena taageerno. salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. odayaal badan baan u badaynayaa. waayahay haddana waxaan microfonka ku soo dhaweynayaa oday ka mid ah odayaasha jubbooyinka Bashiir Maxamed Cilmi. بسم الله الرحمن الرحيم. aad iyo aad ilaahay baa mahad u sugnaatay. waxaan inkaga mahad celinayaa shirkan qolada soo abaabushay dhammaan bulshada weynta joogta ee jubbooyinka ama Soomaali rag iyo dumarba dhalinyaro iyo waayeelba saxaafadda aad iyo aad baan inkaga mahad celinayaa. maad ka bacdi shirkan waxaa looga hadlayay oo la iskugu yimid taageerada dadkii jubbooyinka
ka sheeganaya dhibaatada uu ku hayo maamulka Jubbaland Soomaalidu waxay ku maamaadaa haad habeennimo waxa dheelmiyo kiciyay buu qabaa saad ogtihiin haadku hameenkii ma duulo galab dheer buu geed fuulaa hadduu hameen kaco waxa kiciyay waa dhib Jubbaland dadkeeda waxa kiciyay dhib weeye dhibkaasna maamulka ku haya maamulka waxaan leenahay waxaa ku deeqda Soomaali kuma deeqda qoys iyo qabiil kuma deeqo Jubbooyinka Soomaaliya waxa aan xaq ahayn oo hadda wax ku qaybsato oo la yiraahdo 4.5 kulli waa degtaa dhulka Jubbooyinka la yiraahdo qoys ka maqan oo Soomaaliya qof sheegi kara ma jiro intaas walaalnimo deeqda laguna xukumi karaa inay helaan garsoor iyo dawladnimo iyo madax wanaagsan bay rabaan laakiin hadday deeqi weydo dadka maamula intaas hadday deeqi weyday waxa deeqaya garan mayna waxa deeqaya taariikh xumo wax joogayana ma jiraan taariikh xumo uga tagaya marka dambe sababtoo ay tahay Allah waxaan hayno baaqi ahaanaya ma jiraan Allah un baa baaqi ahaanayo waxa laba taariikh bay leeyeen waqti bay ku eegayeen waqtigaas dhamaanaya Soomaalidu markay daristo waxa la yiri cid markay kala guurto waxa la yiraahdaa reerkanagi waagi iyo reer baaski macnaha hadii reer fiican daris kula aha waxa weeye waa reerkanagi hadduu reer xun ahaana reer baaski weeye madaxduna ka daalka weeye madaxdii fiicnayd hebel oo na soo maray iyo madaxdii baas weeye marka waxaan leeyahay madax baas baa tiina ka wareega dadka madax fiican ma aydine madax baas baa tihiin ka wareega dadka sababtu ay tahay mar haddaad u garsoori weydeen in yaroo Jubbaland oo isteedka Jubbaland seebaad ugu hawoonaysaa inaad Soomaali xukunto see ugu hawoonaysaa inaad Soomaali xukunto oo Soomaali kismaayo isugu keento Jubbaland baad maamuli weyday oo dadkeedii ka qaylinayaan ku diidan yihiin oo adan u garsoorin taas intaas aan kale yahay mid kale waxaan leeyahay waxa la yirbiyo biyo hadii wax tar hayaan lagu cayilahayo aniga la iga fiiriyo Soomaaliya 30 sano wixii xabad socotay iyo waxaan isku sameeynay cid wali oo mano raadinayso may ku waana qaadato 30 sano wixii la soo maray ninka u cilqaba aniga waxa ila tahay ويجي عذر باواد تكون إلى عداية اللي يراد إن باجري بالي إلى عداية نتشوي إلى عذابي نبى ماهن أنا عبادة سنة إلى يوتيوب صدق سنة نيكي تشوي أو حجران هيا أو صوماليا ولي حبض يقبل ولا الغباء ده نيكي اللي يري إلى عداية نتشوي يعني أنا عبادة سنة إلى يكبرنه نبى ماهن صدق كاسن إنت الصومالية سوتشوجي أو دجال كل حشري أو واحد تاي قانا ما أنت أنا ولا حبض يقيبين ولا سعي الغبا ننشر ماهن ما نشري الدونه تاريخ حبونا كنت هيا سأدرت هذا وحنا لنا وما ضوب النية همادين إني ماشي هذا كتر بابا إذا ما بابا يدتكوا نولان هيا كوا كافي عم بصوب حيا أدونا وقتي بعد أكتر وقتي بعد لا غفور بقى وقتي بلي سيدا درتد وحن كلو عم بارينا شركي لسكوي يمدك اسمها أو معمول قبلات يلا قاعد بانو عم بارينا سببتها أي تهي وحن كو عم بارينا ويل هدو يرى هذا أبيس
aabba waa kaa tagay waa ku caasiyey waa caasi dowladdu waa aabbihii maamul goboleedyaduna waa ilmihii sidaa darteed ilmuhu hadday caasi noqdaan haddee wax faa'iido ay helahayaan ma leh si ay waalidkooda ku caaseena dadkana dowladnimaa deeqdee gobol iyo qolqolo ma deeqdo dowladnimaa deeqda waxa deeqaa waa dowladnimo haddii dowladnimadaas dadkii qofkay deeqi weyday waxa deeqayaa waa wax kale haddee wixii deeqayaa wuxuu doonaya wey sidaa darteed waxaan leenahay miska wada hadalka oo madaxweynuhu ku baaqay ha yimaadeen maamul goboleedooda wixii dhibahoo jirana oo dhibaatahoo jirana ha ka hadleen oo ha sheegteen wixii dhibaataha oo maamulka dowladdu ka hayso xalaal maalin baa la quustaay ha hadleen hunno hadal maahan buu yihiin birisana war maahan Soomaalida waxay kaloo tiraa inuu laaba shaxun in wax qarsan hayaa la moodaa waxay hadba meel iskugu tagayaan oo ilayeen dowladda xiriirkay gooynaya maxay tahay khaliijka ma Afrika caalamka shanta gees la ka dhaxeeyo Soomaaliya mana kala go'ahayo sidaa darteed waxaan leenahay haddaa wax tabanaysaan wada hadal baa layn kugu baaqay fariista la hadla waxaad tabanaysaan haddaad gar leediinna waa cadaan haddiinaan gar lahayna ku soo noqda miiska wada hadalka sidaa darteed halka waa badiyey dad baana iiga dambaynahaya aad iyo aad baan u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waayahay aad iyo aad u mahadsan yahay Bashiir Maxamed Cali cilmi waqtigu waxa weeye waqti yar baan haysanaa insha Allah taala waxaan ka codsanaynaa odayaasha dambe in ay soo gaabiyaan 5 daqiiqo insha Allah hadeerna waxaan u yeerayaa aadan Axmed Barre ku soo dhawow bismillaahir rahmaanir rahiim salaamu calaykum waa salaamantiin dumar iyo rag anigu wax badan oo sheegaya ma jiraan waxaan u sheegayaa ummadda Soomaaliyeed codkayga lama maqlayn waxaan u sheegayaa ummadda Soomaaliyeed aniga oo ka soo joodo Jubbooyinka kuna nool Columbus Ohio ummadda Soomaaliyeed nimankii ku shiray Kismaayo si xun bay sameeyeen dadkuna waa arkaa marka nimankaas waxa weeye waan cambaaraynayaa waxaan kaloon mataqaanaa ayidhayaa shirarka mataqaanaa ka dhacayo gobolkaas Kismaayo iyo Gado iyo Jubbooyinka dhan isku yiraahdo macnaha mudaharaadada looga soo horjoodo waan ayidhayaa nimankii shanta ku shiray Kismaayana waan cambaaraynayaa marka anigu hadalka ma badinayo intaasaan uga baxayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan hadda nagu yeerayaa insha Allah taala oday Maxamed Warsame Omar anigu afar qodob baan ka hadlahayaa qodob walba goolihiisa aan ku istaagayaa halkan waxaa isku ummadii Soomaaliyeed ee gobolada Jubbaland deganayd magacayga waxaa la yiraahdaa Maxamed Warsame waxaana ku magacaa Omar waxaana ka mid ahay odayaasha Soomaaliyeed ee reer Jubbaland ee Columbus ku nool qodobka oo horeeya waxaan leedahay waxaan soo dhaweynaynaa kacdoonkii ka dhacay gobolka Gado iyo degmooyinka ka tirsan Jubbaland ee Jubbada Hoose oo ay kaga soo horjeedeen dhibaatada Axmed Madoobe iyo shabaab ay ku hayaan waxaan inii sheegayaa Soomaaliyeed Axmed Madoobe qabiil ma aha waa argagixiso inuu saayna waxaad ku ogaanaysaan inuu sa qabiil ahayn waxaad ku ogaanaysaan dhibaatada uu geystay Axmed Madoobe boqolkii 60 dhibaatada waxay ku dhacday beesha ogaadeen bay ku dhacday
taas waxaad ku ogaanaysaa inuusan qabiil ahayn ummadda reer jubbaland waa walaal waa mid cadowgoodu waa shabaab iyo axmed madoobe dadkaas waa walaal qof kastoo soomaali ah gaar ahaan reer jubbaland waxaan ka leedahay ummadda reer jubbaland saddexdaa gobol degta midnimadooda iyo walaalnimadooda ka shaqeeya intaa markaan ka gudbo axmed madoobe dad raggu waa saddex nin wanaag ka shaqeeya xumaanba shuqul ku lahayn iyo nin wanaagna sameeya xumaanna sameeya iyo mid wanaag xumaan maaha wanaagaba ehel oo ahayn axmed madoobe wuxuu ka mid yahay kuwa xumaatada maaha wanaagaba ehel oo ahayn oo aan shuqul ku lahayn sababta ugu wacanna waxaa weeye waa argagicisana wanaag shuqul kuma lahaba wuxuu ku eedeeyay markii guddiga aqalka sare yimaadeen dowladda hubkii ay noo diiday dowladdu rasaasi bay noo diiday bal waxbaa inii sheegay wax lagu qoslan inay tahay wuxuu yidhi intaa markuu yidhi shalay ciidamada dowladdu ka dhintay kismaayo loogu talagalay jubbaland inay ka xoreeyaan shabaab wuu diiday waa burbushay waxaa dowladdu soo dhigay taliyihii ciidamadaas howlgelin lahaa oo shabaab ka xoreyn lahaa jubbaland waa eriyey dowladduna wuxuu ku eedeynhayaa hub iyo raasaas bay noo diida soo wax lagu qosla ma aha taasaa waxay muse inuu argagixisan yahay waxaan leedahay etoobiya waxaa laga xoreeyay haraagii tigre kismaayuu fadhiyaa waa in jubbaland waa in laga xoreeyaa haraagii tigre iyo isbahaysiga axmed madoobe iyo shabaab waa in laga xoreeyaa kismaayo jubbaland dadka joogaa ma hadli karaan xabis dusha ka furan bay ku jiraan kismaayo maalintii kenya qabsatay bay gacanta soomaaliya ka baxday waxaan leedahay waa in kismaayo lagu soo ceshaa oo laga xoreeya haraagii tigre iyo argagixisada shabaab waa in kismaayo laga xoreeya oo lagu soo ceshaa gacanta ummadda soomaaliyeed qodobka labaad waxaan cambaaraynahayaa marka koowaad iyo marka labaad iyo marka saddexaad guddiga aqalka sare ee kismaayo yimid oo intay axmedoo la shirey yidhi waxaan soo aragnay maamul iyo dadweyne mid ah been bay sheegeen waa qaayimin wargada muwaysa jubbaland ka mid ahayn gadawa jubbaland muwaysa ka mid ahayn wixii ka dhacaya muwaysan arkayn degmooyinka jubbada sida dhoobileed oo kale wixii ka dhacayo axmedoo laga soo horjeeday muwaysan arkayn waxaan leedahay aqalka sare waxaan leedahay xubnaha sibida kismaayo waa qaayimiin axmedo bay u adeegahayeen waxaa loo soo diray baladadada waxaa loo soo diray hooyooyinka dhallinyarada culummada aqoon-yahanka dadweyne inay la shiraan oo waraysadaan hal qofa kama waraysan axmed madoobe meel la gareen wuxuu rabay u sheegeen waana qaadeen waxaan leedahay aqalka sare dadkay wakiilka ka ahaadeen waa dulmiyeen shacabkay wakiilka ka ahaadeen waa dulmiyeen dhibaatadooda bay qariyeen codkooda bay qariyeen axmedoo bay u adeegahayaan waxaan leedahay aqalka sare madaxda u sarraysa xubnaha sideedda waa in laga saraa golaha ummadda reer jubbaland wakiilka ma aha shirkii ka dhacay kismaayo oo madashu iskugu tagtay wuxuu ahaa shir lagaga soo horjeedo mudnimada qarannimada horumarka soomaaliya waxayna ahaadeen maamulkii tigre dhisay ahaadeen waxay yidhaahdeen kow tigraa dhisay ummadunba dhisan waa haraagii tigre ka haray waa madaxda ummadda dadkooday waxay rabaan inay dhibaato ku ceshaan soddonkiisa dhibaatada ku jiray
waxaa yidhaahdeen xamar nabad ma aha gacan saddexaad baa loo baahanya xamar waa nabad xamar ciddii cayda soomaali bay cayda kow waxay yidhaahdeen gacan saddexaad war soomaaliya weligeed bay jirtay waa isqabanaysay ma gacan saddexaad baa wax u qaymin jirtay waxay meeshaa ka caddeeyeen soomaaliya caqli iyo garasho iyo dadnimo arrimooda ay ku xalisha inaysan lahayn hadda ayaga qurda waa taabanaysaa ogaada oo waxay ku leeyihiin waxaan leedahay soomaali waa dad tashan kara waa dad arrimooda ku filan waa dad arrimooda ka xalin kara soomaali way ka gudubtay gacan saddexaad waxaan soo dhawaynaynaa haddaana ummadda reer jubbaland odayaasha magaalada muqdisho jooga ee mowqif cad ka qaatay qodobadii labada ahaa oo madashu ay soo saartay oo ahaa xamar laguma shiri kara iyo gacan saddexaad baan u baahanna odayaashaas hore ha noolaadeen oo afhayeenada oday xaad iyo oday jaalle odayaashaa waa u mahadnaqaynaa waa u hambaliyeynaynaa aad iyo aad buu mahadsan yahay maxamed warsame Omar haddana waxaan ku soo dhaweynayaa maaka insha allahu tacaala cabdi samed macalin maxamed falyatafadal mashkuuran بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم waxaan halkaan ku salaamahayaa dadweynaha xafladan ama fadhigan dadweynaha ka soo qayb galay oo Soomaaliyeed ayaan salaamayaa salaan kaliya laba inta markaan ka gudbo waxaan u gudbahayaa Soomaaliya waxa weeye waa wadankan nagii waxaan markasta la jecelnahay wanaageeda horumarkeeda waxtarkeeda waxqabadkeeda waxaan u mahadcelinaynaa qof kasta oo Soomaali ah oo si cadaaladnimo ah Soomaali wax ugu qabta oo si sinaana wax ugu qabta oo si midnimo wax ugu qabta ayaan aad u soo dhaweynaynaa oo u hambalyeynayna oo walaalnimadii Soomaaliya soo celiya oo wada jirkii soo celiya oo wax wada cunki soo celiya oo isdhaxmarkii soo celiya oo kalsoonidii soo celiya qofkaas Soomaaliya wax u ah qofkaas aan u hambalyeynayna kuwaasaan soo dhaweynayna kuwaan aad ugu faraxsanahay oo Soomaali wax u ah oo kii dibadda joogana uu ku iranaya kii dalka joogana horumarinaya dalka Soomaaliya jooga horumarinaya kaasa Soomaaliya kuwaasa wax u ah wax uma ahan qofkii Soomaaliya dhibaateeya waa dhibaato Soomaaliyana haddii la ku idmaayo wax wanaaga oo ay leedahay male 30 sano ka badan bay soo martay waxa weeye wanaagna ma ilahan qofkii aqli leh ama garasho leh ama iimaan leh ama diin leh ama wadannimo leh na way u muuqataa arrintaas way u muuqataa qofka intaan lahayna waxaan leenahay Allah ku soo duwo ilaahu haddaadan ku soo duwaynana dhaafi oo ummadda dhaafi marka intaa ka gudbo waxyaalaha na taabanaya oo nan danqahaya oon ka hadlayno waxaa ka mid ah Soomaaliya waa walaal waa isku dal waa isku dan waa isku diin weligeed ahaan jirtay in inta raas Gambooniya raas Casayrnimo iska soo aruursadaan ay yiraahdaan Soomaaliya waa kala goynay Soomaaliya kalsoonidaan kala noqonay iyagoo markaas dawladda sheegaya war dawladda haddaad kala noqotaan dadweynaha ma idin kala noqday idinkana dadweynaha ma idin kala noqday marka waxa weeye waa waxaasoo dhan wax kana keenay maahan waxaan leenahay ka daaya gacantogaaleynta iyo isdoorashada iyo is-abaabulshada iyo meel shirka aan Soomaaliya danaheeda ahayn nimanka gobolada maamul goboleedyada madaxda ka ha ka daayeen waxaan u aragnaa dan gaar ah inay raadinayaan waxaan u aragnaa dan gaar ah inay gacantogaaleynayaan waxaan u aragnaa inay waxyaalo raadinayaan oo taqaanaan Soomaali dan u hayn ayaga danahooda iyo gaarkooda ah
soomaaliyana caqli way leedahay way istaqaanaa qof markuu meel u dhacdo qofka kale wuu garanayaa waxaan leenahay wadada quman qabsada war madaxa baa tihiin waa laydin soo doortay war wadada fiican qabsada war wada gooyirka ka leexda war luqluqa ka leexda war aflagaadada ka leexda war madarada ka leexda war hadaad ka leexan idinkana waa laydinka leexda meeshaana wax wanaagu ma yaalaan nimanka maamul goboleedka dib ay isugu noqdeen hala yimaadeen wax Soomaalinimo ah oo saxan oo wax qaban kara hala yimaadeen inta markaan ka soo gudbo meesha la yiraahdo Jubbaland muddo ayay hadii la ku imaayo al-shabaabkii laga kiciyay maalinkii al-shabaab laga kacshay iyo hadda inta ka dhacdana cabasha ka soo yeeraysa ummadii deganeyd Jubbaland cabasha ka yeeraysa cadaalad darra ka dhax yeeraysa isdil baa ka dhax yeeraya qabiil baa ka dhax yeeraya waxa qaybsi la'aan cadaalad lahayn baa ka dhax yeeraya waxa ka dhax yeeraya inaan la danaysanayo gobolada qaar la tagay oo la aaday baa ka dhax yeeraya waxaan idin leenahay dadka mas'uulka ka ah Jubbaland waxaan war cadaalad la imaada war aqli la imaada war wax macquul la imaada war dadku Soomaali xumaan waxba kuma tari karto wax badan oo dhibaato ah geysteen baa jira war dhibaatada ka jooga annagu raali kama nihin idinka iyo kuwa iswadwato oo mataqaana kolba meel tagay qaabka samaynaysaan nalamana qumana Soomaali weyn lama qumana inteeda badan shirka maanta kulankeena wuxuu ku saabsanaa cambaarayn iyo dhaliil aan u soo jeedinayno shirkii Kismaayo ka dhacay oo ay ku shirayeen maamul goboleedada go'aanadii indhala'aanta ahaa ka soo baxay aan u danaynayn shacabka Jubbaland iyo guud ahaan Soomaaliba maadaama annaga aan nahay Jubbaland inaan ku cabirno dareenka iyaga maanta halkan ku aadan go'aankaas maamul goboleedada ku gaareen magaalada Kismaayo iyo taageero buuxda oo aan ku taageerayno kacdoonka isbedel doonka ah dadka reer Jubbaland ay ku rabaan inay iska dulqaadaan maamulka muddada dheer waxtar la'aanta ah daashaday hadeerna waxaan u yeerayaa insha Allah taala gabadha la yiraahdo Sucaad Aadan Sheekh Xuseen السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان بالشدة Soomaali weyn ee isugu imaaday shirkan caawa mahadsantihiin marka waxaan rabaa inaan ka hadlo muhiimadda shirka caawa meesha waxaan isugu imaanay laba qodob ayaa u muhiimsan mid waxa weeye in aan ku muujinayno macnaha taageero shacabkii ka mudaharaadayay macnaha waxa ka jira Jubbaland iyo maamul goboleedyada ku shiray Kismaayo marka haddii aan nahay anaga shacabka Jubbaland waxaan rabnaa inaan muujino taageerada aan u hayno dhammaan macnaha gobolka Gado oo ka tirsan Jubbaland in macnaha aan muujino taageeradaas dadkii fikradoodii iyo macnaha wixii ay kaga soo horjeedeen qodobada ay yihiin waxa waay Jubbaland maamulka macnaha meesha ka jiro waxay hadda dawladda dhexe ku eedeynayeen in ay tahay dawlad aan dhaafin Muqdisho laakiin ayagu waxa weey dawlad aan dhaafin Kismaayo marka shacabka waa inay tixgeliyaan mudaharaadyada ay muujinayaan ama maamulka Jubbaland ay u fiiro yeeshaan sababta keenaysa waxay mudaharaadayaan haddii adiga oo macnaha maamul goboleed ama ah dawladda dhexe ka soo horjoogsanaya oo aad leedahay shacabka aad leedahay macnaha maamul baan nahay waxaana ka soo horjeednaa dawladda dhexe horta waa meesha Soomaaliya oo dhan laga maamulo haddii marka adiga aad ka soo horjeesto macnaheedu waxa weeye inaad tahay qof nabadiid ah ama aad tahay gobol ama maamul nabadiid ah waxa waaye marka taageerada cawada aan muujinayno ma ahan taageero ku gobolkan ama magaaladan maanta aan joogno waa taageero ka jirta macnaha Soomaaliya oo idil waxaan rabnaa marka inaan ka codsano dawladda maamul goboleedka Jubbaland in ay fiiriyaan waxa keenaya shirarka waxa keenaya macnaha ka soo horjeedka waa inaad u fiiro yeelataan eedeymaha aad bixinaysaan wax macnaha hore u soconaya ma ahan Soomaali 30 sano ayay waxay ku jirtay dhibaato oo aysan ka baxaynin haddii sidan lagu sii socdo
qabiil wax ma taro dowladda ayaa wax tarto haddii aad dowladda dhexe kasoo horjeedana anagu ma taageersanin dowladda dhexe ayaan taageersannahay taageeradanada cawada halkan oo imaaneen sidaa wey asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan haddana u yeerayaa xagga dhallinyarada insha allahu tacaala maxamed cabdi cartan. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربي يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين dadka ka soo qayb galay shirkan rag iyo dumarba dhalinyaro iyo odayaalba waa la hadlay wixii ujeedada ahaana waa laga hadlay intii badnayd hadalka waa un la dhahaa looma dhahaa la yidhi meesha uu u baahan yahay baa la abbaaraa waxaa weeye marka odayaashu waa hadleen wixii meesha ka jirayna waa ka hadleen oo la isugu yimid waxaan taageero u muujinaynaa oon taageeraynaa taageero xoog leh oo dhan walba ah oo aanna waxba ula haraynin kacdoonka isbeddel doonka Jubbaland waxaa weeye markaa kacdoonkaas ma ahan mid ku eg gudihii iyo dadkii mudaaharaadaya keliya waa mid qof walba oo deegaankaas degan ama ka naxahaya waxa ka jiro Jubbaland iyo Soomaali meel kastoo dhib ka jiro dhan ay ku lug leeyihiin weeye oo taageersan yihiin annaguna qayb weyn baan ka qaadanaynaa diyaar baana u nahay ilaa waxa lagu raadinayo la gaaro inaanna joojinin kacdoonkaas oo dhabtiisa iyo mirihiisa aan gaarsiin haddii Ilaahay idmo intaa kadib dadku maxay ka mudaaharaadayaan waxay ka mudaaharaadayaan waxaa Soomaalidu ku amaada dheriga karka maxaa ka keeno kuleylka ka keena qofka hadduu cadaalad haysto iyo nabad iyo wixii uu u baahnaa hadduu ma iska mudaaharaadi karo wax ka keenay baa jira mudaaharaadka in la soo baxay in la qayliyo wax ka keenay baa jira waxaa sabab u ah Axmed Madoobe iyo waxa uu Kismaayo ku hayo ama deegaanada Jubbaland oo dhan uu ka Kismaayo ba u darnaatee anigu Axmed Madoobe markuu meesha tagayo horta see ku yimid Soomaali ma geysanin baarlamaan ma dooranin cid dooratay ma jirto nin gabre la yiraahdaa magacaabay magacow gabre nin gabre la yiraahdo magacowkiisu uu ku taga meesha asaga iyo maamulkiisaba gabrena wuxuu yahay waa la yaqaanaa haddii gabre wanaag Soomaaliyeed kama shaqaynaynin adeer Omar ba hadda wuxuu ka sheekaynahay waa haraagi Tigreega been ma ah run wey Tigreegi buu ka haray Axmed Madoobe waxaa weeye marka Axmed Madoobe gabra meesha geystay gabrana sida aan hayno asaga oo suuq mugdi ku baxay oo uga baxay Ethiopia iyo Yurub u carar oo fakanahayo in marka ninkii keenayna uu saa u carar asagana uu meesha joogo wali booteeyo waa dadnimo xumo annaga naga timid way waxaa weeye marka Axmed Madoobe dadka Kismaayo uu ku dilay way noo qoran yihiin carradaasi ka bateen ma xisaabsano hantida uu dhacay way qoranta ma xisaabsana ayadana qof Soomaali oo Kismaayo degan oo mood iyo nool bahan noqotay uusan dhicin Axmed Madoobe jamhadiisa ma jirto waxaa weeye marka Soomaalidu waxay soo qaadaa 91kii baa laga hadlaa iyo dagaalkii ahliga ah oo ka dhacay Muqdisho iyo boobkii dhacay oo Soomaali ninba nin boobayo ninba nin dilahay oo 30 sano ka hor ahaa baa laga hadlaa laakiin Kismaayo waxa maanta ka jiro waa la iska indha tirahayaa Kismaayo waxa ka jiro 91kii waxaana ka dhicin Soomaaliya Kismaayo ka jiro
axmed madoobe anigu waa taageersanaa waagi horese ama gabraha keen ama cid kale ha keentee waxaan u taageeraynina waxay ahayd ama un isbeddel ku imaadaa yaan ku taageerayn dadkii taageersanaa oo daba taagnaa baan ku jira anigu annagaa meesha ku haynay haddana dad baana moodayna laakiin dugaag buu noqda dugaagna haddee in xoolahaaga iyo reerkaaga laga ceshado diintaa ku farayso haddii naftaada iyo maalkaaga aniga hadda idinla hadlaayo dhul aan ku lahaa Kismaayo asaga shakhsi ahaantiisa qaad dadka qabiil laaba dhaca asaga shakhsi ahaantiisa iga dhacay ergaan u dira asaga ma joogin nimanka meesha joogo Maxamuud Sayid ugu horeeyo madaxweyne ku-xigeenka erga u dira in la joojiyo amreen Axmed Dul amray ma joojinayna dhahan in la qaato waa xaqiiq way of marqaati loo hayo keligayna ma ahna qof kasta Soomaaliya deegaankaas degan cabashada iyo dhibkay waxa ka jira meesha maalin walba way socotaa waa la ogi waxa noocaas oo kala marka in la dhowrto waa dayuusnimo way leena qofka hadii maalkiisa iyo naftiisa iyo diintiisa lagu soo weeraro inuu isdifaaci waayo waa dayuusnimo inaan marka isdifaacano oon Axmed meesha dhaafina annaga nagala rabaa mana deynayna ilaa aan dhaafina insha Allah biidnillaahi kariim waxaan u sheegayaa oo kale nimanka caamiliinta ah oo la shaqeeya Axmed Madoobe ilaa maamulka Axmed Madoobe waan ogna asagu ka bilowda asaguna ku dhamaada waa sheekadii maka xaaji banaadir oo beesada kuna u yar kuna u weyn Axmed asaga u weyn meesha la yiraahdo Kismaayo ama maamulka Jubbaland asagana u yar waa wax la og yahay way nimanka marka la joogo waa niman caamiliin ah way caamiliin waxa la yiraahdaa qofka shaqaalaha ama qowsaarka oo la adeegsado way liana annagu hadda dib baa naga soo gaaray dhow oo iyo mid fogba waa na soo gaaray waa fara badan yahay laakiinse intaas oo dhib oo u dambeeyeen gabdhii hadda lagu kufsanayo meesha la yiraahdo gobolka Gado Balad Xaawo agteeda meesha ahay tuuladii lagu kufsanayo way diideen inay ka hadlaan way difaaceen ma jirtay dhan way xaqireen hantidii la burburinayo iyo dadka la dhacay sidaas ay yeeleen ninka marka gabadhiisii oo la kufsaday lama kufsanin oo ninka kufsaday garab taagan oo walaashi iyo hooyadii maxna damiirka ku jira waad garan kartaan waxa uu yahay Soomaalidu waxa ku maamahada waxa la yiri niman may oran karin haadiisu waxba ma tarto Axmed marka waxaan u sheegayaa kuwa la joogo oo iska soo hormarinayo oo maya dhihila waxa uu sameeynayo xun inay haadooda meel geyneen baan u sheegayaa hadalkayga waxaan ku soo gabeen nin ayagana waxaan leeyahay kuwa ayaga oo ka hadlayo way is yaqaanaan haddii wax un damiir ay ku dambayso wax un damiir haday ku dambayso mudaharaadii ka dhacay hadda Jubbaland degmooyin kamid ah Gadabaha u badnaatee mudaharaadii ayaga qofka haduu mas'uul yahay nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam kullukum raa'i wa kullukum mas'uul an raa'iyati qofka mas'uulka waxa la rabaa dadka uu mas'uulka ka yahay dhibkooda iyo dheeftoodaba inuu ka warramo dhibki marka ka dhacay meesha oo dadkii mudaharaadayay hatta inay yiraahdaan warbal dadkan maxay horta ka mudaharaadayaan aan wareysano waa awoodi laayeen dadku maxay rabaan maxay la mudaharaadayaan inay weydiiyaan hatta waa awoodi laayeen maxay marka dhibka haysto oo nimankaas meesha Axmed ay hoos fadhiyo ay ka sugayaan maxay tahay nin awowgay ahaa oo dhintay baa waxa laga hayaa wuxuu arkay nin beer falanahayo arkay aad gaajo uga muuqato Maxamed Turbac waa la oran jiray ninka odaga oo maamadaas aan ka hayn asaguna geel fara badan buu lahaa wuxuu yiri ninkan gaajada ka muuqata iyo waxaanu ku mashquulsan yahay muxuu ka daran oo ka yaab dhibka haysta maanta muxuu ka daran oo ka yaab ilaa soo waanu haysta wuxuu mooday ninkan beerta falahayabo in waxaan wax ka daran ba aysan jirin oo baahan hadda waxaan leeyahay nimanka ayaga ah oo Axmed maanta hoos fadhiyo wax ka sugayo waxa ka daran ay ka yaabeen maxay tahay waxaan hadalkay ku soo gabagabeynayaa ma deynayno Axmed marka horena annaga geynay meesha tikraa haba geeyay laakiin taageerataanu ku jooga markaan leeyahay taageerataanu ku jooga waxaan ka wado nin walba soo raba u fasirto annaga taageeradanadu ku jooga meesha maantana haddii
uu noocaas noqday annagaa dhaafinayna annagaa ka wadayna meesha insha allah biidni illaahi kariim waan dhaafinaynaa meesha haddii ilaahaydna sidaasaan uga baxayaa hadalkayga asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu haddana waxaan u yeerahayaa bashar ismaaciil ku soo dhowow bashar بسم الله الرحمن الرحيم anigoo ku hadlaya magaca dhalinyarada gobolada Jubbooyinka gaar ahaan Gedo sida wada ogsoonahay Jubbooyinka waxay ka kooban yihiin saddex gobol oo kala ah Gedo iyo Jubbada Hoose iyo Jubbada Dhexe alta Jubbal li jiray dabcan Gedo ayaa magaca wadata lama maqlamaya anigoo ku hadlay dabcan magaca dhalinyarada gobolada aan sheegay saddexda oo la isku yiraahdo Jubbaland waxaan salaamayaa dhammaan jaaliyada gobolada ka soo jeeda ee reer Columbus oo caawa halkan xaadirka ku ah dabcan oo isugu timid inay ka hadlaan danahooda iyo aayahooda aniga ma rabo inaan badiyo dhammaan dadkii hadlay ayaa iga horeeyay ayaa hadlay waxaan rabaa inaan ku soo koobo laba qodob anigoo koobaya waqtiga labada qodob waxay yihiin ayidaad iyo taageero aan u muujinayno isbedelkii iyo kacdoonkii ka bilowday gobolka Gedo gaar ahaan iyo degmooyinkii kala duwanaa dabcan Bu'aale iyo Dobleyna waan arkayay waxaan rabaa kale halkan inaan kaga faa'iideysto oo gaarsiiyo fariin haday macnaheedu gaarto muuqaalkayga ama codkaygu gobolka Gedo degmooyinkiisu waxay ka kooban yihiin 7 saddexda degmo ay hartay Luuq Doolow iyo Balad Xaawo shacabka ku nool inay garab istaagaan oo ra'yigooda muujiyaan oo walaalahoodii degmooyinka kala joogay ee cabashada maamulka meesha maaragtay ragaadiyay ee la haray ay ka muujinayeen inay garab ugu noqdaan oo ay maaragtay baahidooda iyo tabashadooda laftooda ay muujiyaan inta markaan kaga gudbo ayidaada aan u jeedinayno kacdoonka ka dhanka ah maamulka Axmed waxaan dhaliil u jeedinaynaa dabcan Soomaaliya waxa loo soo minguuriyay dhaqan xun oon hore uga jirin federal wax la yiraahdo Soomaaliya ma qaadi karto Soomaalidu waa dad qoys ah waa dad walaalo ah waa wadan aan maaragtay qaadi karin waxan haasaatida waa la isqasbay odayaasha sheegayeen gabraha iyo wixii laga sheekeynayay Itoobiya Tigreega waxa ay noo soo guuriyeen oo qayb iyo xukun in Soomaaliya qabiil iyo maaragtay wax aysan ka dhamaanayn la isugu dhiibo maamulka marka waana la qasbay federal baa la siiyay haday federal tahay Jubbaland baa Ilaahayna ma kan siiyay waxa maamulkii xaq u yeeshay marka ayadahayd oo Ilaahay nasiib u siiyay dabcan oo hogaankii noo qabtay Axmed Madoobe iyo ragga hadda la shaqeeya maamulka Jubbaland wuxuu ka kooban yahay 3 qaybood oo dabcan asaga oo madaxii ah golaha wasiirada iyo baarlamaanka dhaliisha way wada leeyihiin madaxa ha u dhacdo laakiin baarlamaanku waxay baarlamaan u yihiin inay madaxa sare haduu qaldamo oo golaha wasiirada ay qaldamaan ay wadada ku soo toosiyaan maamulka gabi ahaanba wadada uu ka baxay tareenka waxay ku wadaan wada qaldan sida daraadeed hadaan nahay shacabkii gobolada ka soo jeeday hadaan nahay waxaan leenahay qasab iyo sandulle cid kuma maamusho waa diidnay maamul qasab ku jooga adduunkana ma jiro wuxuu maamul ku yimaada rabitaanka bulshada uu markaa matalayo soo sida daraadeed caawa waxaan leenahay waa diidnay maamul sanka la iska gelinayo qasaba Soomaalidu waxay tiraahdaa maroodiga takarta saaran ma arko ee wuxuu arkaa midda kale Axmed madaxweynaha Jubbaland asagoo shir jirayd qabanaya oo dawladda dhexe dhaliilaya oo le maamulka macni dawladda dhexe maysan gaarsin amniga wadanka kan waxa la sheegaa dabcan aniga ma tagin Kismaayo 5 kilomitir gudaheed inuu maamulkiisa uu ku eg yahay wax uu asaga jeebka ku wadana uu yahay maamulka dhanba sida daraadeed dabcan danihiisa gaarka inuu ayuu ku maamushaa maamul gaara dhammaan bulshada ka soo jeeda goboladaas ma ahan wixii loo igmadana way baalmareen waxaan kaloo rabaa inaan bulshada reer Gedo gaar ahaan gobolka Gedo gaarsiiyo kuwa madax ku sheega ee nagu matala Jubbaland nama matalaan ayaga shaqo tagay danahoodana u shaqo tagay waxaan diyaar u nahay wixii hadda ka dambeeya inaan la imaano dhalinyaro fiyow aqoon iyo maaragtay daacadnimo iyo hufnaan iyo karti u leh inay dadkooda ku hagaan wadada saxda ah insha Allah waanan isbedelka soo dhawaan imaan doona ay ku imaan doonaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waayahay waxaan soo gaarnay gabagabadii kulankayaga
waxaan u yeerahayaa insha allahu tacaala xaydar cali dhuux kusoo dhawow xaydar. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا أسكت هذا كمان شيرين ليسك مركا ما قان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحان سلام يا دمان تدوينها يسوي بيد حفلة دان وحال لقاها اللي موضوعي بيشان لو يبيد دمان والقاها اللي أنا قبدي وياه وما لقينا هي واحد شيء هي waxay ahayd taageero lagu taageerayo goboladaas mudaharaadka ka dhacayay iyo diidmadii jubbooyinka iyo dawladda laga hor yimid oo la yiri dawladda la shaqayn maynayo baarlamaanku yiraahdeen maamul goboleedyadii meeshaan wax walba ujeeday leeyihiin shirkan ujeedadiisu wuxuu ahaa in laga hadlo arrimahaas nimankii ku shiray Kismaayo maamul goboleedyada ahaa dad gaar ah ku guurayay qaar waa lagu guurayay looma dhamayn mashruuca waxaan maqlaa meesha la yiraahdo Somaliland area la yiraahdo jeegaan baa la sheegaa oo laba reera anigu waxaan moodaa jeegaanta inay timid koonfurta oo gaalkacay ka soo kacdo Kismaayo timaado sheegaantii noor sheegi jirtay inay soo guurtay oo koonfur loo soo raray baan qiyaasaya waxaan cadeynaynaa oo aanu aragnaa meeshaan hadalka aan hadlayno caawa halkan caalamka waa laga arkayaa waa laga dhageysanayaa in been la sheegana ma ana runta in la sheegaa muhiima waxaan cadeynaynaa ognahay wax qof kastoo hadla tiifka ka hadla inuu soo baxo subaxii inaan daawano saddex mashruuc oo ka socotay Soomaaliya oo gobolada ka socotay saddexdiiba waa la xiray waxay ahayd galmudug oo la rabay in laga dhiso Hobyo waxaa la rabay in laga dhiso Jowhar iyo Balcad inta ka dhaxla Laami laga dhiso Baydhabo iyo Xamar laga dhisaa rabay jid la rabay waxaa joojiyay Cabduwali Gaas asagoo ugu talagalay inaan Hobyo dhismin ay dhisanto Garacad Jowhar jidkeedii waxaa joojiyay Awaare waxaa la yiri wax alla wixii Soomaaliya lahayd waxay qaataa Xamar baa qaadataa lagu yiri nimanka diidayana waa nimankii Xamar deganaa iyagoo laftooda oo loo dhisay waxa loo dhisayay Shariif ilaa Baydhabo la rabay in la dhiso jidka dheer waad weydeen lacagtii 2 milyan 200 ka timid qadar labada jid bay ku bixi lahayd Shariif waa la kaxay waxa la yiri uma baahri buu yiri waxa dhismahaas anagu reer galmudug waa dhumeenay waa baabeen laba ruqsaysay waa la socotana wax maamulo ka jira caawa lama arko dawladda isku yeertay ilaahay hadduu badbaadiyo waa meesheeda nimankii deganaa Hirshabeelle ogaas iyo iimaan iyo boqor waxay lahaayeen iyo odayaashoodii xildhibaankoodii go'aan waxay qaateen dawladda inay taageerayaan oo aan hawsha wixii ka soo baxay aysan qaadanayn odagii waa ku raacay wuxuu yiri waa ka noqday anigu dawladdan raacayaa bi galmudug waxa badbaadi waa weyda barka waxa soo jubbooyinka jubbadeed wixii ku dhici lahaa waa ku dhacday wixii laga dhihilaana waa laga yiri habeen waxaan dhageysanayaa laba eray oo isdhaaf ah oo isku hadlayo Cabduwali Gaas musuqmaasuqa Soomaaliya haysta waxa ka tagay Maxamed Saad Barre 20 sano hor budinta wadankana dhusmareeb gurwada siyaad ka qaadi jiray wuxuu keenay oo yiri maan dhaweyto haddii aan Puntland haysan buu yiri dekada iyo laamiga dheer maxaad ahaan lahaydeen buu yiri ninka dhisay ma yaqaan beeshaas isdhaaf baa ka socda iyo garashawaa dawladda Soomaaliya
ayadaa mas-uulka golaha dhexa dowladda dhexa ah xaq waxay u leedahay 3 shay inay furiso sharciga inay dhammaystirto iyo dastuurka ayaa lagu kala adkaan karaa ama la isku hay karaa ciidan dalka difaaca oo dadkaas xanaaneeya oo qabta waxay dhaca inay sameeyaan ayaa laga rabaa dowladdu waa inay lacag samaysaa sharcigana samaysaa ciidankana dhistaa intaa waxay ku ekaanaysaa midnimada Soomaaliya laga helaya Soomaaliya wax col ah ma jiro 20 nin baa is haysata kaliya 20 nin baa is haysata 20 oo is irida Soomaaliya shacab iyo ganacsade iyo dhakhtar iyo injineer wax is haysta lama arko habeenay waxaan arkayay tukaraq 3 professor oo taagan ciidan wada professor ciidan wata waligay ma arag inta noola mid baa ari keenay jaamacadu wuxuu ka dhigaa Minnesota iyo jaamac iyo wuxuu ka yahay macallinkii Maxamuud Ismaaciil Sabatar aribu keenay soo tukaraq ciidan oo qabiil wata Faysal Arwaay bad soo ciidan wata oo injineer على جاس أو بروفيسور هو تجسوا عيدا وقتها نكل أوريج أضاق الأوريج شري قال لي رواية يسوي عيدا وقتها والوري بروفيسور قري وتوري مارتين تانو رايدين وادي وقتها الصومالي هاي ستا وهذا التاجن وحانو كسو جبين يا رجع صومالي يا صومالي دولة مسؤولية دي أيضا صارنتها dad kan wareeraya oo 3 waxa la soo xiray Ethiopia iyo Kenya wala soo xiray oo ma jirto wax hadda la aadaya Carabtiina wala soo xiray Soomaaliya waxay waxa meesha ka muuqata hadda nimankii la oran jiray dawladii la oran jiray Ethiopia iyo Eritrea waa heshiiyeen kilarka shanaanda waxa loo baxshay Somali state shantii gobol oo Soomaaliya la kala goynayo hartay awal hore loo jaray waxa keenaya dad kale waa kulli faaqan hawsha inay gadaal ka dhamaatana kaba ay warayaan nimankaas anagu waxaan leenahay Soomaaliya ha noolaato ummadda Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa dawladdaas cadaalad inay u samayso 3 shay oo kaba laf dhabartaana inay kabto oo lacagta iyo sharciga iyo ciidanka assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatuh waxaan haddana ku soo dhaweynayaa insha Allah taala meega siinayaa Maxamed Daahir ku soo dhaw Maxamed Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatuh waan salaamayaa dhamaantiin waxaan halkan uga mahadcelinayaa dadka xafladan quruxda badan caawa isku soo qabanay baan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa marka labaadna waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa oo aan taageero halkan uga muujinayaa dadweynihii Jubbaland ee ka soo banaanbaxay oo shucuurtooda ku muujinayay siday isaga xoreeyaan ama isaga dulqaadaan hogaamiye kooxeedyada xukuma oo u sheegta madaxweynayaasha aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan ugu mahadcelinayaa oo uga bilaabayaa mahadcelinta hooyada kacdoonka Garbaharey gobolka Gado aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan kaloo u mahadcelinayaa Baar Dheere gobolka Gado aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan kaloo u mahadcelinayaa Buur Dhuubo gobolka Gado aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan ugu mahadcelinayaa Ceelwaaq aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan ugu mahadcelinayaa Doobley baan sidoo kale u mahadcelinayaa oo Jubbada Hoose iyo Afmadow dhammaantiin aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa waa in ka warqabnaa waa in la soconaa waa in taageersanahay shucuubtanada iyo qalbiganagu idinka la jiraan waxaan leenahay halka ka sii wada sii hadaalinina ilaa iska dulqaadaan hogaamiye kooxeedyada haraadiga hogaamiye kooxeedyada iyo argagixisada hore oo meesha haysata sidaas uga xoreyn lahaydeen aad iyo aad baan ku taageeraynaa qodobka
saddexaad aan rabay inaan ka hadlo waxa weeye nimankii sheegtay iskaashiga gobollada iskaashiga maamul goboleedyada oo ka dhacay shirkooda magaalada Kismaayo anigu waxaan dhahay golaha sharta aan ugu magac daray maxaa yeelay waxay ku shireen shar bay ahayd wax khayr u soo jeedinaya ma ahayn ama wanaag u keenaya Soomaaliya waxaana daliil idinku ah waxay soo saareen waxay dhaheen xiriirka ayaan dowladda Soomaaliya u jarnaa markaas waxay rabaan inay xiriir la yeeshaan caasimadaha shisheeye bay aad u jecel yihiin inay xiriir la yeeshaan oo ay ka guuraan caasimadda Soomaaliya aad waxay u jecel yihiin in Nairobi iyo Addis Ababa looga taliyo waa necib yihiin inay xamar xiriir la yeeshaan oo ay xamar looga taliyo aad bay uga faanayaan qodbooyinkooda ka dareemaysaan waxay sheegeen oo dawladdu ku eedeeyeen inay dawladda faragelin ku haysto ayagu faragelinta ay dawladda dhexe ku hayaan maxay waxay dawladda faragelin ku hayaan siyaasadda arrimaha dibadda dawladda dhexe ayaa xaq u leh inay maamusho ama go'aamiso siyaasadda arrimaha dibadda ee dawladda Soomaaliya ayay ka hadleen oo ay farageliyeen oo dhammaan khudbadooda ku jirtay waxay kaloo ka hadleen amniga dalka waxaa ka mas'uul ka ah dawladda dhexe jananadii Soomaaliya dawladda dhexe u soo magacaabatay jubbooyinka Kismaayo laga soo celiyay ciidan in la dhiso ma rabaan marka ayagiiba marka waxay leeyihiin jananadii soo celinaya oo dawladdii hor taagan oo ciidamadii la isku dhafa diidan haddana waxay leeyihiin dawladdii amniga inay wax ka qabato ma rabto faragelin bay nagu haysaa waxaan ka codsanaynaa dawladda dhexe Soomaaliya faragelinta annagu waa u baahannahay inaad gobollada aan ka soo jeedno aad faragelisaan oo aad nagu hadlaynin waxa la soo dhoodhoobay oo madaxweynayaasha lagu sheegay ma taageersanin mana aanan dooran madaxweynayaal nooma aha xaqna oo male inayna maamulaan because ma aanan dooraninba adinkaan idiin codaynay xildhibaanadanadii gobollada ka soo jeeday dawladda dhexe ay codeeyeen kuwaasaana maamula kuwaas ayaa madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo doortay madaxweynaha kaliya ee namatala maanta ama golaha baarlamaanka oo namatala ama wasiirada kaliya oo leenahay oo namatala oo gobolladan ka soo jeedna namatala ee jubbooyinka waa dawladda dhexe wey xildhibaanada dawladda dhexe wasiirada dawladda dhexe madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha dhammaan raggaas aan namatala inayna farageliyaan baan codsanaynaa inay gobollada noo soo gaaraan baan codsanaynaa inay toos noola xiriiraan baan codsanaynaa waxay kaloo ka hadleen dhaqaale waa la siiyaa jeebka Axmed Madoobe iyo jeebka Shariif Sakiin bay gashaa lama gaarsiiyo degmooyinka ay xukumaan wax la gaarsiiyo male waxaan codsanaynaa dhaqaalaha aad siinaysaan in aad especially gobolka Gado kale gobotooraha gobolka Gado in dhaqaalaha inta la qaybiyo gobollada gobolka Gado toos loo siiyo dhaqaale oo Axmed Madoobe la soo marinin arrintaas waa codsanaynaa waxay dhaheen hubahana la siiyo nin walba maleeshiya beelood buu meel ku aruursada oon isku dhafsanayn Axmed Madoobe hadda maleeshiya beelood buu ka haystaa magaalada Kismaayo hub buuna codsanayaa in la siiyo yuu rabaa inuu ku laayo shabaab hadduu ku weerarayo buula guduud buu dhaafi laaya 7 sanoona maraya wuxuu rabaa inuu dadka Soomaaliyeed oo madaxweynaha u sheegto inuu hub ku laayo codsanaya waxaan leeyahay dawladda dhexe Soomaaliya haddaad hub siisaan wixii hubkaas lagu dilo mas'uuliyadda idinka qaadanaya adinkaana dadka Soomaaliyeed laayay waxaan kaloo ka hadlayaa niman hadda adeerka waa Xuseen yiri waxaan nahay golaha sare oo dhexdhexaadina oo yimid magaalada Kismaayo tiimkii Axmed Madoobe ku milmeen waxay soo saareen waa arkayseen waxay ku hadlayeen waa arkayseen waa kala qaybin sax oo isku dirayaan Axmed Madoobe iyo dadkiisu waa midaysan bilaan dawladda dhexe fargelin ugu haysa anaga gobolladaas ka soo jeedna ay ka hadlayaan Axmed Madoobe anagu dadka naga laayay anagu dhulka naga boobay anaguna kala qaybinayaa hadda bal fargelintu ku hay imase jeer baa maamul loo sameeyay gobolka Gado aad bay u badanta qofkii asaga ka hor yimaado uu bedelayaa marka waxa weeye ma raacsanin Axmed Madoobe dawladda dhexana waxaan codsanaynaa in
ay arrintaas aysan Axmed Madoobe iyo Shariif Sakiin iyo dadkaas aysan ku hadlaynin iyo ninka la yiraahdo Xaaf iyo Gaas dhammaan dadka Soomaaliyeed goboladaas ku nool dawladda dhexe ayaa ka mas'uula adinka la idin doortay inayna ku hadlayn baa codsanaya waxaan halkaan uga mahad celinayaa madaxweynaha Hirshabeelle iyo dadka Hirshabeelle sida ay u garteen dibindaabiyada loo maleegay ayaga iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed inayna dawladda la heshiiyeen waan uga hambalyeeynaa dawladdana waxaan leeyahay maamulkaas insha Allah waxaad ku heshiiseen hayr galaan taageerana u muujiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi waayahay guntiga gabagabadii baan soo gaarnay insha Allahu tacaala qofka ugu dambeeyo aan u yeerahayo wuxuu noqon doonaa insha Allahu Maxamed Xaashi Cali bismillaahi raxmaani raxiim halkaan waxaan caawa aad baan kugu mahad celinayaa dhammaan dadka halkaan isugu yimid waxaan ka hadlayaa horta awalan aan taageerayaa go'aanka ay qaateen maamulka Jubbaland iyo kacdoonkii ka bilaabmay kaas oo looga soo horjeeday nidaam darrada iyo sharci darrada iyo sida ay wax u wadaan Axmed Madoobe iyo maamulkiisa intaa ka bacdi laba arrimood baan ugu ka hadlayaa mid waa shirkii ka dhacay Jubbaland oo ay maamul goboleedyadu isugu yimaadeen iyo arrinta ku saabsan dhibaatada uu ka geystay maamulkaas Jubbooyinka waxaan ognahay in muddo 7 sano inuu Axmed Madoobe meesha joogay oo uusan weliga xataa soo booqan caasimadda Garbaharey Doobley weliga tegay sida ninka madaxweyne u noqonaya anigu waa midaan la yaabana waa mid waxa see madaxweyne loogu yeeri karaa wax allaale waxaan had waa dhawata maqlaynay dadkii biyo qaadeen oo halka biyuhu ay u joogaan in lacag yar oo maqan 100 kun ahayd maqan oo yiri darishada laga soo galay ka bacdi dawladdii dib ay u laabatay isaga loo geeyay lacagtii dambe dib ugu laaban mana waxba uma geey macaawinooyinka la soo qaado adduunka laga soo qaado wax lacaga oo ama taageera ama dadka uu ka siiyo gobolada ma jira Kismaayo uu ku qaataa waxaan ognahay in geedihii iyo dhirtii meesha eber laga dhigay hadda waxaan aad ugu faraxsanahay in waa dhawata qaramada midoobay iyo beesha caalamka iyo dawladda federaalka in go'aan midaysan laga qaatay oo lagu tilmaamay inay tahay crime ama dambi geedaha jiristooda iyo dhuxush oo nabaad guur meesha uu ka dhacay waxaa kaloo soo haray waan qodobka labaad oo ka hadlayaa arrinta maamul goboleedyada nimankii sheeganaya anu barasaabi aanu aqaanaa madaxweyne waa hal madaxweyne adduunkuna saas weeye beeqa madaxweyne weeye madaxweyne waa madaxweynaha ummadda oo la doortay waxa weeye shirbe waa dhawta halkaan ku yeesheen waxay yiraahdeen nalama tashado ayagu ay la tashadeen nin walba madaxweyne ku xigeen buleeyahay madaxweyne ku xigeenkiisa lama tashan bal qof asagii baan la tashan deegaankiisa mudaharaadii ka socdaan oo ku dhahayaan anna lama tashan oo dhaqaalihii 10 mar baan waxaan maqlayn in dawladdu ay u yeertay hadeer ay u yeertay horaa loogu yeeray waxay socod midda kale dawladda ay dhaliilayaan dawladdu waa midda maxaabiistii ku xirneed oo ilaa 700 500 gaaraysa laga soo daayay ilaa India Seychelles meel walba laga soo daayay ma maamul goboleed baa keeni kara dawlad baa wax lagu noqdaa anaga dawladda wax ku soo baranay dawlad la'aan dadku ma noolaan karaan dadkan uma shaqeynayaan hatta dadkay madaxda u yihiin uma shaqeynayaan magacaas ay rabaan inay ku qaraabtaan hawada Soomaaliya waa la soo celiyay dawlad magac lagu ma soo celin waata diyaaradaha hal meel baa laga maamulaa waa guul la gaaray maxaabiistii baa la soo daayay mushaarkii baa ciidamadu qaataan nidaamkii baa kala socda waxyaalo yar yar waa iska dhacayaan tana hadda joognaa dadka la isku laayaa oo meel walba lagu dilaa meediyahana waxaan leenahay wadanka dadkiisa dhista in propagandada iyo dacaayada la iska daayo waxa weeye in dadka loo gargaaro oo dhibaatada laga hortago baantay waxba waa dhacayaan wax hadda magaalooyinkaana dadku meel walba la isku laayaa waxa weeye in ummaddu ay ka fakaraan weeye oo ay fiiriyaan wadankooda nibakaasna aan lala tashan anu intaasaan kusoo gabagabeelayaa wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
waayahay waa gabagabadii barnaamijkaan maraynaa waxaa weeye shirku waa inoo xiran yahay jaaliyadda Jubbaland cariga Mareykanka magaalada Columbus gobolka Ohio caawa ay ku cabirahayeen fikirkooda kana damqanahayeen hadduu Ilaahay ku samee ogol yahay tacadiyada iyo waxyaalaha loo geysanayo dadka afduubka iyo xabsiga madaxa kor ka furan ee ku jira jubbooyinka ku nool intaas caawa noogu yahay insha Allah taala aad baad u mahadsantihiin sida aad uga damqateen dadkiina waad mahadsantihiin